Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta qiimaha badan kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan rajeynayaa in maalin aad u wacnaad qaadanaysaan. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa caadooyin kuwa oo si dhaba u bedeli kara noloshaada. Noloshu ma ahan mid sidaa usii dheer si aad ugu lumiso sameynta waxyaabo maalayacni ah. Waxaad haysataa muddo aad u kooban oo aad koonkani ku sugnaanayso. Waxaase muhiim ah inaad wax fiican qabsato inta aad ku sugan tahay koonkan. Ha u ogolaan in dhaqamadaada ay dib kuu celiyaan oo bilow sameynta kuwa cusub. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa dhaqamo kuwa oo ay fududahay inaad ku dhaqaaqdo misna ku siinaya nolol ka qiimo badan kana farxad badan mid aad hadeertan ku jirto. 1. Raadi ujeedada aad ka leedahay waxyaabaha aad qabanayso. Inaad subaxdii soo kacdaa misna aad ku dhaqaaqdo qabashada hawl adigoon aqoon ujeedada aad u qabanayso wax ay kaa caawin doontaa ma jirto. Taa beddelkeeda waxay kugu sababaysaa inaad dareento inaad tahay qof ku nool bilaa macno misna aan ku faraxsanayn waxa uu qabanayo. Raadi ujeedada aad ka leedahay waxa aad qabanayso. Mar waliba eeg faa'iidada aad ka dhaxlayso kadib marka aad dhamayso qabashada hawshan. Haddaynan jirin wax faa'iido ah oo kaaga soo bixi kara, dabcan waxaa qasab ah inaad joojiso sameynta arrinkaasi sababtoo ah kuguma hogaamin doono nolosha farxadda ah ee aad rabto. Dhaqanka labaad waa inaad bilowdaa wax akhrinta. Akhrinta buugaagta waa hab aad u weyn oo aad ku kobcin karto aqoontaada misna aad ku horumarin karto hal abuurkaaga. Sidoo kale waxay xoojisaa diirad saaridda, waxay kaloo wanaajisaa hurdada. Akhrinta kutubada ugu horeeya kitaabka Alle waxay ku siinayaan fikrado, dhiirigelin iyo inaad ogaato micnaha aad koonkani ugu dul nooshahay. Sidoo kale waxay ku baraysaa sidaad uga gudbi lahayd caqabadaha nolosha ayagoo ku siinaya tusaalooyin cad dad horay dhibaatooyin u wajahay. Bilow inaad akhrido buugaagta ugu yaraan 5 safxad maalinkii si aad u horumariso noloshaada. Dhaqanka saddexaad, bilow inaad isku hareerayso dadka wanaagsan. Adigu waxaad tahay 5 qof ee aad inta badan waqtigaaga la qaadato waxa ay yihiin. Tan ugu qaalisan ee ay tahay inaad si fiican uga taxadirtaa waa cidda aad la qaadanayso waqtigaaga. Waa hubaal waxaad maqashay oraahda ah itusi saaxiibadaada oo waxaan ku tusinayaa mustaqbalkaaga. Dadka aad waqtigaaga la qaadato ayaa ah kuwo in badan saameyn kugu leh. Ka fogow haddaynan kugu sababayn wax aan hoos u dhac ahayn. Ha agjoogin haddaynan wax isbeddel ah sameynayn marnaba oo waqtigaaga la qaado dadka raba horumarka kulana wadaaga farxadda. Waqtigaaga waa waxa ugu qaalisan ee aad haysato. Ha ku lumin inaad la qaadato kuwa aan hami iyo hiigsi nolosha ka lahayn oo ku bixi sidaad ugu dhisan lahayd nolosha aad adigu rajaynayso. Dhaqanka afaraad, u qorshee waqti si aad jimicsi u sameyso. Marka laga imaado in jimicsigu hagaajinayo caafimaadka muuqaalkaaga, jimicsigu wuxuu kiciyaa hal abuurkaaga, wuxuuna sare u qaadaa garashadaada. Sidoo kale waa hab saameyn leh oo aad ku kobcin karto dulqaadkaaga iyo tamartaada. Bilaabida jimicsiga waa hab aad kaga sareyn karto jiilkan da'da yar ee uu dishooday caajiska iyo wahsiga. Haddaadan horay u sameyn kama aadan daahin oo weli waxaad haysataa waqti. Bilow maanta oo arag sida uu noloshaada saameyn ugu yeesho una beddelo. Dhaqanka shanaad, in badan dhageyso oo in yar hadal. Marka aad hadasho wax badan, taa micnaheedu waxay tahay inaad ku celcelinayso waxaad horay u taqaanay, balse marka aad dhageysato waxaad baranaysaa wax cusub. Ma ahan kaliya inaad wax cusub baranayso, sidoo kale waxaad ilaalinaysaa tamar aad meel kale u isticmaali lahayd. Ha isku dayin inaad ka dhex gasho ama aad wax kale isku mashquuliso marka aad qof kale wada hadlaysaan. Sii dareenkaaga misna isku day inaad fahanto ujeedka hadalkiisa aadna dhuuxdo waxyaabaha aad ka faa'iidi karto. Mar kasta oo dhageysato waa mar kasta oo wax barato. Dhaqanka lixaad, iska daweey cudurka baraha bulshada. Tiknoolajiyadan casriga ah waxay naga qaadatay waxa ugu qaalisan ee uu qofku haysan karo, ka oo ah waqtiga. Qofka caadiga ah wuxuu leeyahay ilaa 5 ciwaan, wuxuuna ku bixiyaa waqti dhan 1 ilaa 2 saac maalinkii baraha bulshada. Cilmi baarisyo caafimaad baa waxay sheegayaan haddii aad ku bixiso waqti badan baraha bulshada, waxay u badan tahay inaad wajahdo niyad jab iyo kelinimo xilliyada qaar. Qaado waqti aad ku jarayso isticmaalka zaa'idka ah ee baraha bulshada si aad u yareyso welwelka. Ka dheero moobilkaaga ama kombiyuutarkaaga dhowr saacadood maalinkiiba si aad u hagaajiso dareenkaaga misna aad dib ula midowdo dadka hareerahaaga jooga. Dhaqanka toddobaad, bilow caawinta dadka kale. Waxaa jirta oraah Chinese oo leh haddii aad rabto 1 saac oo farxad ah xoogaha yar jiifso, haddii aad rabto 1 maalin oo farxad ah kulumaysi aad.
balse haddii aad rabto farxad noloshaada oo idil, caawi dadka kale. Inaad qof caawisaa ma qaadanayso kumanaan saacadood, sidoo kale ma qaadanayso milyamaad lacag ah. Keliya caawimaad yar oo qofka u baahan yahay ayaa ah mid ka qiimo badan intaa oo idil. Alle wuxuu caawiyaa addoonkiisa ilaa intuu asagana caawinayo dadka kale. Mar waliba oo aan bixin caawimaad waa mar waliba oo aan helno ujeeddada, macnaha iyo farxadda aan noloshan ka raadinaynay, misna ay adkeyd inaan helno. Wax kasta oo aad maanta qabato waxaad heli doontaa abaalgudkeeda. 8. Weydii su'aalo badan. Bilow inaad weydiiso inta su'aal ee aad awooddo si aad u kobciso garaadkaaga iyo aqoontaada. Ha ku koobin aqoontaada hal dhinac, oo isku day inaad wax ka barato qayb waliba oo aad xiisayso. Haddii jirto qayb ku xiiso gelisana, isku day inaad in badan wax ka fahanto. Sidoo kale weydiinta su'aalaha waxay kuu horseedayaan inaad noqoto qof furfuran. Habkan wuxuu kaa dhigayaa qof ka sareeya kana horumara meesha uu shalay joogay. Dhaqanka 9, ka tag macluumaadyada aan waxba faa'iida ku lahayn. Qaadashada macluumaadyo aan jirin wax aad uga baahan tahay waxay keliya oo kaa beerdarayn kartaa waqtiga, sidoo kalena maskaxdaada tashwiishin kartaa. Marka ay waxyaabo maalayacni ah gudaha maskaxdaada ka buuxaan, waxaa adkaanaysa inaad diiradda saarto waxyaabaha muhiimka kuu ah. U qaado maskaxdaada inay tahay sida moobilkaaga oo kale. Mar waliba oo aad badato macluumaadka maalayacniga ee ku jira, waa mar waliba oo aad caqabad kala kulantaa sidaad ugu shubato waxa faa'iidada kuu leh. 10. Naftaada xisaabi. Xisaabi naftaada intaan lagu xisaabin. Meel gaar ah kula noqo nafsadaada oo dib u fiiri ficiladaada, habdhaqankaaga, waxa aad xaqiijisay iyo wax aad ku guuldareysatay. Isa su'aal halkeed rabtay inaad gaarto, sideese ku gaari kartaa? Maxay kuugu qaadanaysaa inaad meeshaasi gaarto? Waa hubaal tani waxay ku siinaysaa aragti cad oo ku aadan mustaqbalkaaga iftiinka badan. Halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad in badan ka faa'iidi doontaan. Ulana wadaag asxaabtaada sida aan anigu u jeclaystay inaan adigu kula wadaago. Waa inooyi muuqaalka kan xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Amaana Allah.